bulshada deegaanka Xubabays ee degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa guddiga taakulaynta ciidanka difaaca dawladda Puntland ku wareejiyay 320 item oo raashin ah iyo 10 neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen in ay ku garab istaagaan ciidanka difaaca dawladda Puntland ee ku guda jira howlgalka ciribtirka argagixisada. Taakuladan oo ka timid bulshada deegaanka Xubabays gaar ahaan beelaha Cabdiraxiin Saleebaan oo kamid ah beelaha deegaanka Puntland waxa guddiga taakulaynta ciidanka difaaca dawladda Puntland ku wareejiyay uqaasha iyo waxgaradka deegaanka Xubabays iyo agaasimaha guud ee telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka degmada Carmo Maxamed Jaamac Geedi xildhibaan Maxamuud Dhukuul Xirsi oo kamid ah golaha wakiilada dawladda Puntland kana mid ah guddiga taakulaynta ciidanka difaaca dawladda Puntland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa bulshada deegaanka Xubabays uga mahad celiyay taakuladan ay soo gaarsiiyeen ciidanka difaaca dawladda Puntland. marka xiga maanta oo bishu tahay 23 Febraayo waxaa taagan shaqadeedii maalinle ahayd oo sida maalinle u socotay waxaa maanta jooga degmada Carmo oo keenay garab istaagii iyo taakulayntii ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee la dagaalamaya nimanka argagixisada ay ku soo duulay dalkeena iyo dadkeena deegaanka Xubabays ee degmada isku shuban waa soo dhaweynaynaa xoolahaasi waxay dhan yihiin 10 geel ah iyo 320 tan oo raashin oo isugu jira mid bisil mid ceelin iyo nooc walba leh aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annagoo ah odayaashii deegaanka Xubabayseed gaar ahaan beesha Cabdiraxiin Saleebaan waxaanu halka rabnaa inaan ku wareejino taakuladii aan ugu talagalay garab istaaga ciidanka difaaca Puntland xoolahaas oo ka kooban 10 geel ah iyo 320 item oo raashin ah noocyadiisa kala duwan kuwa bisil iyo kuwa ma garanaysaa ceeriin noocyada kala duwan marka insha Allah hawlka madaale wali waa hogadii waxay la tahay hawsheeni bartankaynu kaga jirnaa ilaa ay soo afjarmayso baana idin salaamaya wana mahadsan waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta munaasabadan quruxda badan aan ku wareejino wixii aan ugu talagalay taakulada ciidamada difaaca Puntland hantidaas oo ka kooban 10 geel ah iyo 320 atam noocyada kala duwan ma garanaysaa bini'aadamku u baahan yahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa markasta inaan qayb qaadan doono kana qayb qaadan jiray ma garanaysaa horumarinta dalka iyo difaaca dalka kulliba mana aha wajigii labaad iyo kii saddexaad kii koowaad bay noo tahay mar saddexaad mar afraad mar shanaad waa la ka arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo wax kastoo jirana nagama hor istaagi doonto difaaca dalka iyaga iyo taakulada ciidanka iyaga iyo iskaraataaga dawladdeena iyo ciidankeena geesiyaasha ee difaaca Puntland 320 atam iyo 10 oo markii ugu horeysay waanu la garab taaganahay dawladda Puntland iskaraataaga difaaca cadawga ku soo duulay dalkeena iyo ciideena oo maayay shisheeyaha ka yimid wadamadiisi oo wadankeena Soomaaliyeed la soo doontay qaladka iyo dhibaatada iyo hawlaha marka waxaan diyaar u nahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaan dawladda iyo dalkayaga difaaciisa aan diyaar u nahay kasoo waxaan salaamayaa dhammaan madaxda iyo shacabka iyo guddiga qaybihiisa kala duwan iyo ummadaasina walba oo ka qayb qaadatay howlgalka Puntland oo hadda ku hadlaya magaca gabdhaha reer Xubabayseed halkan waxaan wadnaa 10 geel ah iyo 320 item oo isugu jira raashin bisil iyo mid ceeriin iyo agabyo kale oo dhar iyo wax kasta leh insha Allah waxaan rabnaa wareejino hawlka madaalo waa hogadii tarwaati u horeysay kuwa aan dadka kala qayb qaadanayna way jirtaa wayna dambaysaa insha Allah inta inuu guul gaarino hadii la idmo ragana waxa la guul iyo gobonimo rag iyo dumarba iyo garab istaag wanaagsan waxaan bogaadinayaa Soomaaliyeedna guud
waxaan bogaadinayaa soomaalideenna guud oo taakulada keenayoo tiirka noo ahaa oo taakulada keenayoo tiirka noo ahaa ilaahay bilicda saare burjiga ku raran ilaahay bilicda saare burjiga ku raran oo xaasidkiin jaban xabiibkiina waa Puntland oo xaasidkiin jaban xabiibkiina waa Puntland waxaan mahad u celinayaa oo kale dowladda Puntland oo ugu horeeyo Siciid Cabdullaahi Deni oo isu xilqaantay argagixisada lagu soo duushay shaqadii looga baahnaana haysa madaxweynaha oo ka iska daayay hawlihiisa kale oo caadiga ahaa booqashooyinkii dibadda sida oo kamid ah halgamayaasha dagaalka kowka ah oo ka doorbiday inta dhimatay oo ciidanka duugtooda inta dhaawaca baxnaanadooda iyo qaadistooda iyo dhoofintooda inta noolna dhiirintooda aad baan ugu hambaliyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaloo u hambaliyeynayaa dhammaanba ciidamada qalabka sida oo Puntland oo la baxay geesiyadii Afrika oo maanta ku soo caan baxay Puntland iyo Calmiskaad ayaan u hambaliyeynayaa waxaan leeyahay ku soo gabagabeynaya qorraxdu waa kulushahay ciidamada ayaan ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay ciidamada guuleysta waa mahadsantihiin qorraxda iyo dhaxanta gabaad baa ka damaynaya colkana nabad baa ka damaynaysa iskaabulada aroos baa ka damaynaya Calmiskaad iyo jecel masaajidada ku yaal oo ah 60 masaajid ka badan oo maanta dhufayska laga dhigtay cibaadada loo dhistay ilaa lagu tukado ciida soo socota oo soo fureen waxba ma aynu gaarin ilaa godadkii gabdhaha iyo riyaa roobka laga gelin jiray oo laga dhigtay bakhaarada ay riyo u gotagaan roobka soo socda waxba ma aynu gaarin guuleysta oo intaan sheegayo gaara oo masaajidada lagu tukado banayya oo dhufayska ka bao oo godadka banayya oo waa wadaanay wada oo guuleysta ducaan idila garab taaganahay salaan kadib maanta halkan waxaan u taaganahay aniga iyo cuqaasha waxgaradka deegaanka Xoobays inaan guddiga taakulaynta ciidamada difaaca dawladda Puntland aan ku wareejino taakulo ay dadka deegaanka Xoobays ugu talagaleen ciidamadooda difaaca inay ku garab istaagaan taakuladaas oo dhan 10 geela iyo 320 item oo raashin ah inaan guddiga ku wareejino deegaanka Xoobays ay soo xilqaamay aad iyo aad u mahadsan yihiin mar walbana sidaas ayay u garab taagan yihiin dawladooda ciidamada waa guuleysanaysaan waxaan rajaynaynaa inta soonka ka horeysa in la soo afjaro ciidamadu aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan mahad ballaaran u soo jeediyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku dhawaaqay oo ku dhiiraday in Puntland laga soo afjaro argagixisada Puntland ay noqoto meel ka caagan argagixisada insha Allah billahi kariim maalmaha dhimanna waxaan rajaynaynaa inay noqoto arrinkii madaxweynaha inuu fulo oo Puntland ay noqoto meel ka caagan argagixisada salaam maanta bisha 23 February maalin axada degmada Carmo waxaan kula wareegaynaa xoolo dhan 320 tim oo isugu jira raashin bisil iyo mid ceerin iyo 10 geel ah oo ka yimid deegaanka Xoobays degmada isku shuban oo ay wadaan odayaasha iyo agaasimaha beesha Abdulxamiid Salaaman waxaan leenahay beesha iyo deegaanka Xoobays waa idinka gudoonnay xoolahaas gadaalkeena taagan 10 geela iyo 320 tim oo raashin iyo bisil iyo raashinka isugu jira waxaan leenahay waa mahadsantihiin waan idinka gudoonnay tan labaad waxaan leeyahay waxaan cadeynayaa anigoo ka mid ah guddiga taakulada ciidamada difaaca dawladda Puntland wareegii labaad oo dagaalku galay in dadka shacabka ah ay laba jibaareen xoolihii iyo maxaan ku raahday alaabtii gabdhuhu soo sameynayeen wajigii koowaad iyo wajiga labaad waxaan cadeynayaa wajiga labaad inuu badan yahay oo la laba jibaaray si loo dhiirigeliyo ciidamada geesiyaasha difaaca ku jira buuraha Calmiskaad warba joogto sidoo kaleeto insha Allah iyaduna waa haynaa wax badan bay soo direen wayna dadaalayaan marka halka waxa ka muuqata Puntland isku tashigeed insha Allah inay ku guuleysatay sida agaasimaha sheegay insha Allah nimankii wax yar baa u dhiman toga jacayleed oo waxa yaal 24 tuulo ba toga ku yaal 3 tuulo ba hadda ka harsan oo sareeya oo shabaab iyo dhasaan iyo dhaawara shabaabna maanta inay ciidan galaan bay u badan tahay insha Allah halkan waxa oo ah degmada Carmo waxaan hortaaganahay oo ka gudoobeynaa deeqdaas 320 tan iyo 10 geela deegaanka Xoobays oo ay maartay ay wadeen agaasimaha telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland odayaasha gudoomiyaha iyo waxgaradka dhalinyarada iyo hablaha
deegaanka Xubays beesha Abdirxiin Saleebaan waxaan maragnahay inaan deeqda guddiga taakuleyntu ay gudoomeen oo xildhibaan inagala joogo dhukuul aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxa ay marag u tahay dadka reer Puntland isku tashigii madaxweynuhu ugu baaqay inay ka dhabeeyeen ay hayaan maanta kayd ku filan ay leeyihiin ciidamada Puntland oo aan raashin meel looga soo iibinayn hilib meel looga soo iibinayn xoolo nool ay haystaan isku tashiga dhiig dadka shacabku ay dhiigooda shubeen oo aan loo baahnayn maartay baaq meel kale loo diro aad iyo aad bay u mahadsan yihiin deegaanka Xubays odayaasha iyo waxgaradka dhalinyarada iyo hablaha ka yimi isgarabtaaga ciidamadooda sharafta iyo qiimaha leh maartay aynu ku hurudno dhiigooda ku hurudno nabadda ku haysano ilaahay baa ku mahadsan go'aankii madaxweynaheenu qaatay maalin adag dagaal aan la hubin wax ka iman doona uu go'aan ku qaatay inaynu dagaal galno inaynu cadawga ajnabiga iska qabanno boqolkiiba 95 waa lagu guuleysay waxaad ogtiin maanta gaatir oodan inay ka carareen iyagoo ku dagaalamin inta haddayna ay tahay dhaadaar qasaan iyo muxuu ahaayay shabaab oo kaliya banaana dhulka badankiisa uu noqon doono aanay ku dagaalami doonin insha Allah waxaan rajaynay doonaa inaanay 7 maalmood ka hadhay bisha Ramadaan aanay la gaari doonin shacabka reer Puntland iyo madaxweynahooda iyo dawladooda iyo ciidankooda sharaf korkooda ha ahaato miisaanka xasanaadkana Ilaahay ugu daro arintani waxay difaac u tahay geeska Afrika oo dhan bay u tahay Soomaaliya oo dhan bay u tahay badda cas bay u tahay ganacsiga caalamiga ee badda cas 30% ama 25 ganacsiga caalamiga ee badda cas buu maraa khatartii ay ka baqayeen adduunka insurance uu qaaliyoobay oo maartay ganacsiga uu qaaliyoobay ganacsiga raqiis noqon doona badeecadu ay ku timaadaan raqiis noqon doona insurance maraakiibta iyo doonyaha raqiis noqon doona rarka lagu soo raraya raqiis noqon doona insha Allah waan ku barwaaqaybi doonaa dhiiga inamadeena geesiyaasha ee cadawga surka kaga joogsaday assalaamu calaykum maxamed barasciid maxamed daal raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Carmo